السلام عليكم. وحجر النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا متاع خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. الدنيا هو متاع إذا وحا أكفي عن زوجة صالحة ووامحي وحا بنا آذن أمهيثا أيغو هيستو. فيديو maanta waxaan kugu soo bandhigayaa waxyaabaha ugu la yaabka badan ee qof caadi ah uu guursado. wiilkan aad arkaysaan wuxuu jacayl u qaaday mas nool oo miyuusan ogeyn in xaaskiisa dhunkashadeeda koobaad uu isbitaalka u aadi karo. iyadoo saa tahay ayuu haddana guursaday maskaas, wuxuuna sheegay inay isku eeg yihiin saaxiibadiisii dhimatay sannado ka hor. Oh my God! waxayna si joogto ah u wada qaataan ficilo romaansi ah iyagoo TV-ga wada daawada, sidoo kalena dalxiis isku raaca iyo weliba jiimta. waxay gabadhan kalena guursatay jacaylkeedii Jack oo jira 300 oo sano. Awaarun waxayna dhacday arrintani 2016. waxaa arooskeedii lagu qabtay badda dhexdeeda. Jack aawede Jack lama arkay. waa sawirka burcadbadeedkii lagu magacaabi jiray Jack. waxay sidoo kale sheegtay in uu xidhiidh ka dhaxayn jiray guurkooda ka hor. I'll have to ask my accountant about that. saddex sano kadib guurkoodii waxay sheegtay in ay ninkeedii furtay maadaamuu isku dayay inuu dilo. nin walboo heer gaadha wuxuu iibsadaa gaadhi cas. nathaniel oo 33 jir ah wala nool yahay xaaskiisa birta ah ee Chelsea, isagoo sheegay in ay isjeclaadeen markii koobaad ay is arkeen. waxaa isweydiin mudan haddii Lamborghini la ballanto ma iskaga tegi doonaa xaaskiisa. xiriir naga dhexeeyay 7 sano oo dhammaystiran, waxaan go'aansanay in aan isguursan. waxay gabadhan isguursadeen boonbalaha carruurta haye weliba qoyska zoombiga ah haye. waxaa intaas ka daran waa boonbale zoombi ah weliba gabadh ah. walciyaadu billaah. arrintan markay jaarku ogaadeen waxay u sheegeen booliska Maraykanka. waayo sidaad wada ogtihiin Maraykanku waa wada jaajuusyo. haddii aad suuliga ku jirtid booliska ayay la hadlayaan si ay u ogaadaan sababta. qof baa suuliga ku jira, aan la garanay wuxuu qabanay. FBI, open up! waana waxa ku dhacay gabadhan, waxayna dadku u maleeyeen in ay la nooshahay ilmo yar oo dhimatay. waxaana la geeyay xarunta booliska si loo ogaado waxa ay tahay. waxa ayna noqotay boombi, sidaana ay isku guursadeen. intaa kadib waxay iska sii wateen noloshooda iyagoo soo wada adeegta hoteelada kuwa ugu caansan isku raaca. waxaan kaga baxayaa in ay heshay zawjad saalixada. 221 ballamood oo bilaa faa'iido ah kadib waxay heshay jacaylkeedii dhabta ahaa, iyadoo ugu dambeyn go'aansatay in ay guursato aygeedii lagu magacaabi jiray Logan oo 6 sano jir ah, xagga ilmaheeduna uu jiro 25 sano. ayaa arooskoodii si sharci ah uga dhacay meel xitaa markhaatiyaashii jooga. intaas ayuu ku egyahay muuqaalka maanta. fadlan commentiga noogu sheeg dadkan sidee kula yihiin. hana ilaawin inaad videoga like saartid. haddaad tahay markii koobaad eedna soo booqatid subscribe saar, waayo waxay noo tahay dhiirigelin. sanid. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.